kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada page-ka YouTube-ka ee Kalkaal Media oo warar iyo warbixino kala duwan aad markaasi ka dhaahtaane. Warbixintan idinayna waxay ku saabsan tahay wararkii ugu dambeeyay Addis Ababa iyo tirada dhimashada oo korortay iyo 1200 oo qof oo iminka la soo sheegayo in xabsiyada lagu guray. taliska ciidanka booliiska ee dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaadanay si kordhayaan tirada dadka loo xireeyo rabshadihii saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. taliska booliiska oo ka hadlayay rabshadaha dhacaya ayaa sheegay in la xiray dad kor u dhaafaya 1200 oo ruux. taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Addis Ababa ayaa la hadlay saxaafadda waxaana xaqiijiyay in tirada haatan la xiray ay ka badan tahay tirooyinkii loo xiray rabshadihii maalmihii ugu dambeeyay dhacayay. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in tirada rabshadaha ku dhintay ay gaarayaan 28 ruux oo la kulmay xaalad adag hase yeeshee ay qabeen cabsi ku aadan in tiradaasi ay ka sii badan karto geerida. taliyaha ayaa dadka dhintay 7 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada booliiska halka inta kalena ay dadka dileen. taliyaha ayaa intaas waxa uu raaciyay inay ku daba dheeraatay rabshadaha isaga oo tilmaamay inay soo bilaabatay 12 Sebtembar oo haatan aynu ku guda jirno. banaanbaxani ayaa markii hore ka bilowday soo dhaweyn loo sameeyay hogaamiyey ururka xoreynta Oromo oo muddo 40 sano ah ka soo horjeeday dawladda Itoobiya iyaga oo doonayay in ay helaan madax banaani. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo qabiil ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee dalka Itoobiya ayaa iminka wada dadaallada dib u heshiisiina. geesta kale Dr. Abiy Ahmed ayaa ku talinaya in colaadan soo bilaabatay loo rogo mid nabad iyo wada hadal ah si arrimahan foosha xun looga gudbo ayuu yiri. intaas ayaan daawadayaal ku soo afjaraynaa warbixintii koobneed aynu kaga hadlaynay wararkii ugu dambeeyay ee caasimadda Addis Ababa oo qasan iyo tirada dhimashada oo korortay iyo 1200 oo qof oo xabsiga la dhigay. haddii aad ku cusub tahay page-ka YouTube-ka ee Kalkaal Media fadlan ha ilaawin subscribe-ka si aad ula socotid wararkeena iyo warbixinadeena dambe.